Asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal dhegeystayaal waa idin salaam meel kasta joogtiin programkan wuxuu ku saabsan yahay ama barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay su-aalihii aad na soo weydiiseen su-aalihii aad noogu soo reebteen Facebooka iyo YouTube-ka ee ku saabsanaya loteriga 2024 su-aasha koowaad waxay leedahay goorma ayuu furmayaa loteriga marka su-aashaas loteriga wuxuu furmaa sanad walba bisha 10aad sanadkan waa la shaaciyay wuxuu furmayaa bisha October 5teeda wuxuuna ku egyahay bisha November 8teeda marka sanad walba wuxuu socdaa halkaas bil intaas ayaa la xareysan karaa marka shanta bisha ayuu furmayaa maalin Arbaca bisha 8aad bisha 11aad 8teedana wuu ku egyahay su-aasha labaad waxay leedahay aniga oo joogo Ethiopia ma xareysan karaa dabcan barnaamijkan qof walba xareysan kara macnaha haddii aad Soomaali tahay wadan walba aad joogtid waa xareysan kartaa su-aashan kalena waxay leedahay familiga ma u xarey karaa macnaha loteriga familiga hooyada waxa u xarey kartaa caruurteeda laakiin waxaa laga rabaa macnaha qof walba u xareynaysa inta caruur ay dhashay sawiradeeda iyo xogteeda macnaha qof walba sawirkiisa xilligo dhashay iyo sawir marka hooyada u xarey kartaa sidoo kale aabahana uu xarey karaa su-aashan kale waxay leedahay 15 sano anigoo jiro ma xareysan karaa dabcan sida sharciga Mareykanka ah programkan waxaa loo talagalay qof walba oo qaangaar ah Mareykankana qaangaarkoodu wuxuu ka bilowdaa 18 sano marka qof Soomaali ah 15 sano waa xareysan kartaa laakiin hadhow waxaa qasab ku ah inaad da'da weynaysato Mareykankana da'da ay u gal yihiin waa 18 marka laakiin waa xareysan kartaa Soomaali ahaan shahaado oo dugsi sare macnaha waxaa lagu qaataa 18 sano markii manhajka ama qaabka Mareykanka loo fiiriyo qaabka manhajkooda 12 sano ay waxbarashadu tahay sidoo kale imise ayuu soconayaa su'aal kale ayaa waxay leedahay imise ayuu soconayaa loteriga sidaa sheegnay wuxuu soconayaa 30 maalmood sidoo kale habka ay ku guuleystaan qowmiyadaha kale waa maxay oo ay Soomaalida ugu guuleysan marka su-aashan waxay leedahay sanad walba Soomaali badan xareysato sababta aysan ugu guuleysan oo ay ugu guuleystaan dadka kale waxay raacaan nidaamka loogu talagalay kaliya in sawirkii iska saxdo sidoo kale waxana waa nasiib iyo calaf in nasiibkaada aad tijaabiso macnaha marka nasiib iyo calaf ay ku xiran tahay kaliyana shuruudaha aad buuxiso marka buuxinaysid si degan su-aashan kale waxay leedahay shuruudaha marka dadkaas su-aashii hore shuruudaha ay buuxiyaan sidoo kale calafkooda iyo nasiibkooda macnaha ay sugtaan su-aashan kale waxay leedahay haddii aan xaas ahay ilmana leeyahay ma ila buuxsan karaa macnaha haddii aan xaas ahay ilmahayga ma ii buuxsan karaa marka hooyadaas caruurteeda u xareysan kartaa waa sax su-aashan kale waxay leedahay DS 260ga ma aniga buuxinaya mise iyaga ii soo sheegayo haddii ku soo baxday oo dhacdaba inaad ku guuleysato selectionka oo ku soo baxday DS2ga ayaga ayaa Gmail kugu soo diraya xilliga aad buuxinayso su-aashan kale waxay leedahay footada ama photo passport-ka ama footada size-ka la iska rabo muxuu noqonayaa barnaamijkii kan koreya ayaa uga soo hadlay footada waxaa la iska rabaa 600 times 600 pixels inay tahay sidoo kale 240 KB na inay ka yar tahay su-aashan kale waxay leedahay formatka la iska rabo maxay tahay formatka waa JPEG inay ahaato ay ku sabgaraysan tahay hore u sheegnay macnaha 2 times 2 waa size-ka Mareykanka photo passport-kooda la iska rabo la iska baahan yahay marka su-aashan kale waxay leedahay haddii aan joogo wadanka Uganda anoo ku sugan macnaha qaxootina ii xareysan yahay ma xareysan karaa programkan dabcan waa xareysan kartaa laakiin qaxooti haddii ku xareysan yahay hawshaada gabagabo mareyso markaas waxaa lagu la talinayaa inaadan xareysan marka laakiin haddii qaxooti uu processka kale ay ku xareysanaa uu soo dhaweyn waa xareysan kartaa sidoo kale qofka wuxuu leeyahay shahaado dugsi sare haddii aan haysan shahaado dugsi sare aan lahayn ma xareysan karaa macnaha tusaale anigoo hadda fanfara laakiin shahaadada wali haysan waa xareysan kartaa programkan selectionkiisa wuxuu soo baxaa bisha May natiijada marka qayb waxay leedahay oo xirfado lagu xareysto marka su'aalaha qaybta koowaad halkaas ayaa ku sameynaa tan iyo kulanti dambe wixii su'aalo kale aad qabtiin commentiga noogu reebo Facebook page-keena Cakaari Media nagala socotiin iyo sidoo kale YouTube-ka Cakaari Media fadlan subscribe sar YouTube-ka hadaan nagala socotid siina share garay muuqaalka sidoo kale Facebook hadaan nagala socotidna like noo saar iyo follow wixii su'aalaana commentiga noogu reebo insha Allah qaybta koowaad su'aalaha halkaas ay noo joogto kanaalka nagala socotiin Cakaari Media fadlan muuqaalkan like hala saaro ah la sii share gareeyo tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo